بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كسو دوادا مركلة إيو موقال كله هدي aad nagu cusub tahay subscribe saar hadii aad hore u joogtayna fadlan soo dhawow like saar muuqaalkeena maanta waxa uu ku saabsanaa doonaa insha Allah taala waxaan ku soo qaadanaynaa Zoom meeting cloud sida loo isticmaalayo iyo qaabkii aan create garay lahayn anagoo isticmaalayno mobile-keena smartphone-ka waxaan tagaynaa insha Allah taala Play Store aan kali ku siinayna Play Store ka soo kicina ama App Store kadibna qaybta search kor waxaan ku qoraynaa Zoom kadib install ayaa ku dhufanaysaa install ayaa leenahay soo install gareysmaya downloading oo sameynaya Zoom waxa loo isticmaalaa in markaas lagu qaato meetimada ama kulamada sida galaasyada oo kala casharada la bixilayo seminaarada maadaama hadda coronavirus uu jiro isku imaatankan oo markaas ay xadidan tahay ama aysan dadka u suuragaleynin maadaama adduunkii dhan oo hal dhalo uu ku wada jiro qofka meel walba uu joogo in markaasi uu ka qayb qaadan karo adduunka meetinada ama conference-yada ka socda Zoom-na waa aaladda hadda ugu caansan oo aad loo isticmaalo aalado kale oo la mid ah ayaa jiraan oo sidoo kale lagu sameyn karo meeting-ka oo ka mid ah Microsoft Teams iyo sidoo kale waxa lagu sameyn karaa Google Meet ayaa jira asigana sidoo kale webinar ayaa jira asigana sidoo kale lagu sameeyo aad sin markaasi waxa uu ah insha Allah ونو soo daganaya install gareysmaya hadda installation-ka ayuu wadaa kadib waxaan leenahay open ayaan dhigna open waan fureynaa Zoom-kan gudaha u galeynaa okay start a meeting ayuu leeyahay ama start or join a video meeting on the go okay laba qaab waa sameyn karnaa hadaan ku cusubnahay sign up inaan dhahno ama inaan markaas sign in aan dhahno wadii hore markaas aan u isticmaalaynay ama haddii aan meeting join aan leenahay kadib wuxuu na weydiinayaa meeting ID iyo password-ka uu na weydiinayaa ama passcode-ka kadibna waan galaynaa insha Allah waxaan isticmaalaynaa maanta sign up ayaan leenahay sign up kadib wuxuu ku weydiinayaa da'da date of birth aan la weydiiyay date of birth kan gelinaynaa okay email laga rabaa okay waxaan leenahay sign up kadibna message ayaa loo diray emailkii aan soo dooranay emailka fiirsaa lagu leeyahay kadibna linkiga meesha ka soo raac confirmation laga rabaa okay emailkii aan tagaynaa emailka wuu imaaday kadibna aan ku dhufanaynaa kadibna activate ayaa leedahay haduu activate ku shaqeeyo waa linkigan hoos ku dhufanaysaa buluuga okay activate aan ku dhufanay okay meesha waxaan la weydiinayaa information inaan gelin laga rabaa باسورد كاو استعمالي لهاي معي
I'm not a robot. Computer mi ihi leedahay. Okay. Kadibna noodaan dooranaynaa. Okay. Invitation aan la weydiinayaa email aan ku casuumayno in markaas aan u dirno meetingkeena. I'm a robot me ihi. Kadibna we invite this darabna waa iskii baa leedahay. No problem. Okay. Account-keena soo galay. kana marka account-keena soo sameeyay waxa saaranaysa daarata profile picture sawirka lagu aqoonsan lahaa luqadii. This is the profile waan qana profile si lagu buuxinayo. Okay, meeting ID geena waa kana personal ID ga kana insha Allah weedita daarna aba ka bedelayna ilaa ay wuxuu qaadaa meeting-keena ilaa ay 100 qofood participants basic way. Okay. Okay. Let me host a meeting. Launch the meeting. Go it. Hello. Okay, waa kaas aad no participants way wax participant ama marti noogu jirto malaha. Insha Allah waan casuumi doonaa mid kale soo qaadan doonaa muuqaalkeena maanta wuxuu ku saabsanaa sida markaas loo create gareynayo. Haddii aad ku cusub tahay subscribe saar muuqaalkan like saar share gareyna saaxiibtaas u gaaro marka insha Allah muuqaalkan kan xigana waxaan ku soo qaadan doonaa meetingkii iyo qaabkii markaasi waa adeegsan lahayn gudihiisa trainingkeena kaas ku saabsanaan doonaa insha Allah. aad iyo aad u mahadsantiin daawashada muuqaalkiina. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.